Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan. Saaxiibada aan jecelnahay meel walba aad joogtaan iyo waqti walba ay idin tahay. Halkani waa Caamir Rabla Channel. Asxaabta qaaliga ah, caawa waxaan u sheekeysanaynaa si caadiyan ah. Waxaan sameynaynaa waxay dunida ay ku magacaabaan podcast. Waxaan ka hadlaynaa koobka adduunka, mundiyaalka dunida. Koobka adduunka caadiyan waa koob la qabto 4 sano mar. 4 sano mar waxaa lagu casuumaa marba waddan. Marka laga soo bilaabo 2010kii waxaa martigeliyay waddanka South Africa, waxaana qaaday Spain ayaa ku guuleystay 2010kii. Waxaana ku guuleystay waddanka Jarmalka. 2018kii waxaa martigeliyay Russia, waxaana ku guuleystay xulka xoogweynaha ee Faransa. 2020ka waxa uu ka dhacayaa oo laga baasan doonaa bisha November 20keeda waddanka Qatar. Marka waxyaabaha isweydiinta mudan ayaa maxay tahay farqiga u dhexeeya wadamadii hore oo ka dhici jiray iyo waddanka hadda oo ka dhacayo. Maxay tahay muranka isdaba jooga ah iyo doodaha kala duwan ee baraha bulshada isqabsaday ee inta badan ku saabsan koobka adduunka. Mundiyaalka dunida sida ay dunida u arkaan waa koobka ugu weyn ee adduunka laga ciyaaro weeyaan. Marka wadamo badan ayaa waxay ku andacoonayeen inaysan mudnayn in dowladda Qatar ay martigeliso. Qatar waa waddan runtii boqortooyo ah, waddan hanti leh, waddan soo saara shidaalka iyo saliidda noocyadeeda kala duwan, waddan aan dhaqaale u baahnayn. Koobka adduunkana aan uga baahnayn inuu dhaqaale ka sameeyo sidii wadamadii hore. Haddana waxay leeyihiin Qatar uma qalanto sababtoo ah waa Carab, waa Muslim, waxyaabo noocaas ah. Waxaa jiro marka dad badan oo dhaleecayn u soo jeediya waddanka Qatar. Markoodii ugu horreeyay waxay lahaayeen Qatar ma helayso garoomo ay sameyso lagu qabto koobka adduunka, marka way iska soo wareejinaysaa. Qatar lacag badan bay gelisay ilaa ay waxay diyaarisay 8 garoon oo garoonka ugu weyn uu qaadayo 80,000 oo taageere ah. Markii ay diyaarisay kadib haddana waxay yiraahdeen maadaama ay garoomadii diyaarisay ma helayso hotel ay dadku qaadaan maadaama uu waddanku uu yahay waddan aad isaga yar. Marka waxay diyaariyeen hoteelo aad iyo aad u waaweyn ayay diyaariyeen. Waxyaabaha cajiibka ayaa waxay tahay waxayna soo kireysteen markab runtii baaxadiisu uu aad u weyn yahay, kaasoo ay ugu talagaleen in loo isticmaalo hotel ahaan. Haba loo isticmaalo ma xumee. Qolalkiisa waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 60,000 oo qol mase waa 6,000 oo qof, waxyaabo noocaas adiga ayaa lagu qiyaasay. Waa markab runtii baaxadiisu weyn tahay, leh baraakihii lagu dabaalanayay, meelihii lagu baashaalayay intaba leh. Haddana waxay diyaarisay meelo kaleeto lagu caweeyo, waxyaabo badan bay diyaarisay. Marka waxaa runtii aad u weeraraya oo runtii qaaradda Yurub marka laga soo tago waddanka Germany ayaa waxa jariirad ku taala waddanka ka soo baxda waddanka Germany ayaa waxa ay ku tilmaamtay ciyaaryahanada waddanka Qatar, waxay ku tilmaamtay inay yihiin runtii argagixiso. Waxay sameeyeen kartoon ayay ku sawireen iyagoo hub iyo balaayo iyo waxaas wata. Qatar aad bay uga carootay, waxay wacatay safiirkeedii. Kadib dowladda Germany ayaa raaligelin ka bixisay. Marka waxaa jiraan wadamo badan oo Yurub ka mid ah oo aad u weeraraya. Sababta ay u weerarayaan wax kale ma ahan, waxay tahay waa inay tahay kaliya waddan Muslim ah, sidee Muslim ku noqotay. Mararka qaar ayay haddana waxay ku dhaleecaynaysaa waagii hore waxyaabo kale ee la isku dhaleecay jiray, laakiin hadda aqwaanul muslimiin ayay xiriir la leedahay. Waxyaabo noocaas runtii oo dacayada raqiis ah ay isku dayayaan inay ku dhaleecayaan, laakiin runtii Qatarna waxaasi ee dhan way ka taxadareen. Marka waxyaabaha ay ku doodayaan haddana waxay tahay inay kasoo qaybgalayaan ururka la yiraahdo LGBT amaba loo yaqaano ururka qaniisiinta
kuwaasoo wato calaamadooda iyo waxooda iyo fisqigooda. Qatar boqorkoodu mar buu hadlay, waxa uu ka hadlay oo uu yiri wadankeenu waa wadan soo dhaweyntiisu ay runtii aad u badan tahay, laakiin waa inaad ixtiraamtaan kaljarkeena ama dhaqanka wadankeena. Qatar waxay isku dayeysaa runtii inay edbiso caadiyan wadamada caalamka, sababtoo ah waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah waxay soo saartay qodobo dhowr ah runtii oo aan laga ogolaan doonin koobka adduunka in lagu sameeyo. Tusaale ahaan oo kaleetood ururka kaniisadoo kaleetood haddii la arko ayaga oo runtii ku hor sameynaya dadka hortooda waxyaabo adiga anshaxa ka xun, waxay muteysanayaan xarig ayay muteysanayaan, waxaana laga yaabaa in wadanka laga musaafuriyo. Waxyaabaha kaleeto ay ku edbineysana waxaa ka mid ah in aan dumarkii gaalada ahaa ee qaqabanaa aysan is soo qaawi karin, madaxa lasoo banaysan karin, dhar gaagaabanna oo cawrada banaanka soo dhigayana aan la qaadan karin. Qofkii qaatana runtii uu xabsiga oo ku muteysan karo, maadaama uu yahay wadanka wadan muslim ah, waxyaabaha qaarkoodna aan laga ogoleyn. Waxay kaleeto qodobada ay soo saartay ka mid ah in aan lagu isticmaali karin daraagiska, daroogada caadiga ah. Wadankaasi waxay ka tahay waxyaabaha tiirka la isku geeyo oo la isku dilo ayay ka tahay. Marka daroogada raqiiska ah xataa waxyaabaha maanka dooriyo raqiiska ah ama khamriga iyo wax lamida wadooyinka laguma cabi karo, lama ogolabo. Maxaa yeelay wadanku waa wadan muslim ah, waa in la ixtiraamaa dhaqankiisa. Taasi ayaa ka mid ah waxyaabaha ay qodobada ay soo saartay mundiyaalka dunida. Mundiyaalkan runtii wuxuu noqon doonaa mundiyaal ka duwan mundiyaaladii hore ee ka dhici jiray wadamada caalamka. Waxyaabaha kaleetood aan la ogoleyn waxay tahay in aan salaan ama loo gacan qaadi karin, salaan gacan qaad ah gabdhaha u dhashay wadanka Qatar. Qofkii gacanta u qaada ee kaamirada ay soo qabato ama salaam gacanta ku salaama wuxuu muteysanayaa xarig iyo xabsi intaba. Waxyaabaha kaleetood ay ka hadleen dowladda Qatar waxaa ka mid ah runtii in ay dhaheen marka ay goosha ay dhalato in aan garoonka dhexdiisa la isku baashiin karin ama la isku shumin karin sida ay ka dhacdo wadamada caalamka oo dhan. Marka ay goosha dhaliyaan dadka lamaana ah badanaa way is shumiyaan. Waxyaabaha kaleetood ee cajiibka ah waxaa ka mid ah inay dhahday lamaanaha aan isqabin iskuma dhegdhegi karaan. Marka waxaa sida cad waan ku taageersanaa runtii wadanka Qatar maadaama uu yahay wadan muslim ah, diinta islaamkana ku adagoo xoojinaya inuu waxyaabahaasi uu sameeyo. Runtii aad baan usoo dhaweynayaa. Waxaan dhihi karaa wadamada caalamka ayuu runtii edbinayaa. Marka LGBT iyo Qatar wixii kala qabsado kulley waan arki doonaa. Wadamada Qatar waxa ay pressure-ka iyo cadaadiska u saarayaan kaliya waxay ahayd inay tahay wadan muslim ah. Aniga horta markii hore waxaan islahaa Boortaqiiska iyo waxaas ama taageerta, laakiin hadda fikirkeygu waan bedelay maadaama aan ahay runtii nin muslim ah boqolkiiba boqol. Marka waxaan ku qasbanahay inaan taageero Qatar, Sacuudi Carabiya, Tunisia, wadamada islaamka ayaan taageerayaa. Marka guushana runtii waa calaf, qofkii guuleysanaya lama kala ogaan karo. Muuqaalkan muuqaalkiisa ku xigo waxa aan soo bandhigi doonaa insha Allah garoomada kala duwan ee loo diyaariyay koobka adduunka. Waliba garoonka ugu weyn ee finalka lagu qabanayo magaciisa waxaa la dhahaa Lusail, wuxuuna ku yaalaa Madiinatul Mustaqbal, magaalo loo diyaariyay kaliya koobka adduunka oo ah magaalo cusub oo hadda la dhisay. Meeshaas ayuu ka dhacayaa. Marka garoomada ayaan barnaamij kasoo diyaarin doonaa. Haddii aad ku cusub tahay saaxiib, subscribe ka dhac ku sii. Channelkan waa channelkaaga, ha ismartiyeen. Waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.